waxay ahayd madal kulmisay tira ajaanib oo shaqooyin kala duwan ka haya Somaliland iyo sidoo kale arday aqoon-yahano Soomaaliya waxaana lagaga hadlayay mowduuc la xiriira mutadawacnimada iyo horumarka caalamiga dadka goobta ka hadlay waxay isugu jireen Soomaaliya ajaanib mid kastaana waxa uu sharaxay mudnaanta ay leedahay mutadawacnimadu Marin Fetchion waxay kamid ahayd ajaanibta Somaliland ka shaqeeya ee goobta ka hadlay waxaana ay sheegtay hawshii ugu horeysay ee Somaliland ay u timi inay ahayd si mutadawacnimo leh inay uga qayb qaadato furitaanka kaniisada ay ku cibaadeysan doonaan dadka aaminsan madhabta Catholiga oo laga furay magaalada Hargeysa. And I actually have the privilege of being a double volunteer here in Somaliland. I originally came as a volunteer of the newly reopened Catholic Church. waxay tiri mudnaan weyn ayay ii tahay in Somaliland u joogo laba hawlood mutadawacnimo ah asalkaygii hore waxaan Somaliland u imi hawl mutadawacnimo ah waxaana ahayd dib u furista kaniisada cusub ee Catholiga oo dib looga furay magaalada Hargeysa taasi oo xidhnay 30 sano ee la soo dhaafay. It's the only church in Somaliland that was closed for the last 30 years. And the government recognized that as you're working towards countryhood that allowing Christians to have a place to worship in your country was important, and so they allowed us to come back to establish a place of worship for Christians in Somaliland. Marin Fetchion oo sharaxaysa sababta uu ogolaatay Somaliland inay hawshaasi ka qabato ayaa waxay tiri dawladda ayaa xaqiiqsatay in dalnimadoodu ay muhiim u tahay in Kiristaanka loo ogolaado meel ay ku caabudaan madhabtooda Catholiga sidaas awgeed dawladdu waxay noo ogolaatay in dib u soo laabano oo aanu dib u furno xarun kaniisada oo Kiristaanku ay ku cibaadeystaan. Allowing Christians to have a place to worship in your country was important, and so they allowed us to come back to establish a place of worship for Christians in Somaliland. So when I got here, hawshaasi kaniisada markii aan dhameystiray kadib waxaan hadda si mutadawacnimo uga hawlgalaa isbitaal jaamacadeed oo Hargeysa ku yaala maadaama aan shahaadada labaad ee masterka ku haysto cilmiga caafimaadka at the hospital and the university because I have a degree in public health, a master's in public health. Marin Fetchion ayaa hadalkeeda ku soo koobtay in labadaasi hawlood ee mutadawacnimada ah ee midkood ay ahayd furitaanka kaniisadaasi iyo hawsha kale caafimaadka hadda ay wado ay ka qabatay Somaliland. So I volunteer for the Catholic Church and then I volunteer for the hospital as well as a double volunteer. hadalka Marin Fetchion ee ku saabsan safarkeeda Somaliland ee ku bilaabmay dadaalka ku saabsan kaniisada dib looga furay Hargeysa ee dawladuna ay ogolaatay waxa ay marag u noqon kartaa walaaciyo hore oo ay muujiyeen culimada Somaliland kuwaas oo digniino ka muujiyay in shaqaalaha ajaanibta ah ee Somaliland ku sugani ay mararka qaarkood ku lug yeelan karaan faafinta diimaha aan islaamka ahayn ee ay rumaysan yihiin. Cabdi Shakuur Dayib Maxamed, Home Cable TV, Hargeysa.